kula wacan daawadayaal kan warbaahinta Hiiraan online ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa casuumaad u diray madaxda dowlad goboleedyada si ay uga soo qayb galaan shirka madasha qaran. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku casuumay madaxda dowlad goboleedyada dalka inay ka soo qayb galaan shirka madasha wadatashiga qaran si looga arinsado xaaladda guud ee Soomaaliya. War ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha oo ka duulaya baaqi midnimada iyo wadatashiga qaran ee 31 Maars 2025 uu casuumaad u fidiyay madaxda dowlad goboleedyada si ay uga soo qayb galaan golaha wadatashiga qaran. Madasha uu madaxweynuhu ku baaqay oo ku mideysan 1 ilaa 2 bisha May ayaa muhiim u ah xaqiijinta midnimo qaran iyo sidii wadajir loogu dhameystiri lahaa howlgalka xoreynta dalka iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Villa Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale wada tashiyo la yeelan doona waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii waxaa warka lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay adkeynayso sida ay uga go'an tahay in wada shaqeyn oo iskaashi lagu xaqiijiyo danaha Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin argagixisadu, dhameystirka dowlad dhiska iyo horumarinta dalka. laguma cadeeyay shirkan hadii madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland oo khilaaf kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya ay kamid yihiin kuwa casuumaadda ku jira maadaama aanay weli xal laga gaarin waxyaabihii ay hore iskugu qabteen. sidoo kale waxa ku xusan in madaxweynaha uu la kulmayo mucaaradka dowladda kaliyana waxa lagu soo koobay inuu la tashiyo la yeelan doono waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. geesta kale maamulka Jubbaland ayaa muujiyay shaki iyo mugdi ku saabsan ka qaybgalka gogosha siyaasadeed uu fidiyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taas oo la filayo in uu qayb ka noqdo dadaalada lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed ee jira. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Jubbaland Cabdifataax Maxamed Muqtaar ayaa sheegay in Jubbaland aysan ilowsaneyn mowqifkeedii hore ee ku saleysnaa madax banaanida maamulka isagoo xusay in Jubbaland aysan amba qaadi doonin isla markaana go'aamo uga yimaada Villa Soomaaliya. Jubbaland waxay si cad uga baxday shirkii madasha wadatashiga 7 Oktoobar 2024 go'aanka madax banaan ee mas'uuliyad leh ayayna ku gaartay hadii madaxweyne Xasan hilmaamay hal la xasuusiyo Jubbaland lagama hago Villa Soomaaliya iyada ayaa masiirkeeda ka talisa ayuu yiri wasiir Cabdifataax. si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa horey u soo dhaweeyay in la isugu yimaado miis wada hadal si loo mideeyo dadaalada lagu wajahayo dagaalka Al-Shabaab lagana shaqeeyo midnimada qaranka Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa marar badan ku celceliyay in muhiim ay tahay in la helo hanaan loo dhan yahay oo lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed loona midoobo dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab si loo ilaaliyo jiritaanka iyo wadajirka dalka. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee maamulka SCC qaatumo maanta oo Jimco ah. safarkiisa ayaa la sheegay in hordhac uu yahay socdaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre uu berito ku tagi doono magaaladaas Laascaanood. ra'iisul xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa halkaas ka furi doono mashaariic horumarineed oo ay dowladda federaalka maalgelisay iyo kuwa cusub oo la dhagax dhigi doono. socdaalkan ayaa lagu tilmaamay mid lagu xoojinayo xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka SCC qaatumo. tan iyo shalay waxaa magaalada Laascaanood ku qulqulay wafuud kala duwan oo isugu jira wasiiro xildhibaano labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo saraakiil kale. wasiir Xoosh ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay taageerada maamulka SCC qaatumo iyo horumarinta nolosha shacabka ku dhaqan deegaanadaas. Xoosh ayaa waxa uu xusay in dowladda diyaar u tahay in ay si dhow ula shaqeyso maamulka SCC qaatumo. in ka badan 100,000 oo qof oo ku barakacay dagaalada dowladda iyo Al-Shabaab ee Shabeellaha Dhexe ayaa lagu soo warramay in xaalad adag ay ku soo yihiin dagaalada ka socda Shabeellaha Dhexe ee u dhaxeeya ciidanka dowladda oo ay taageerayaan saaxiibada caalamiga ah iyo Al-Shabaab ayaa sababay barakac baahsan iyo kororka dhimashada iyo dhaawaca dad badan oo rayid ah.
guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ICRC ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in kaliya 3 biloodii ugu horeysay 2025 ay gargaar caafimaad siiyeen 20 isbitaal oo ku kala yaala guud ahaan dalka. magaalada Muqdisho isbitaalka Madiina ayaa qaabilay ugu yaraan 203 bukaan oo ku dhaawacmay colaadaha, taas oo ka dhigan 26% kororka marka loo eego 3 bilood ee hore. waxaan aragnay kororka weyn oo ku yimid dhaawacyada hubka, waana xaalad walaac badan, ayuu yiri mas'uul ka tirsan ICRC. dagaalka gobolada Shabeellaha Dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya Al-Shabaab ayaa horseeday in ka badan 100,000 qof inay ka cararaan guryahooda. xaaladda cakiranna waxay imaanaysaa iyadoo Soomaaliya ay wajahayso abaaro cusub iyo hoos u dhac ku yimid maalgelinta gargaarka. ICRC waxa ayna tilmaameen in markasta ay ka warqabi doonaan xaaladaha kala duwan ay dadkaasi ku sugan yihiin. ICRC iyo Bisha Cas Soomaaliya ayaa sheegay in ay wadaan howlgallo degdeg ah oo ay ku gaarsiinayaan gargaar caafimaad, biyo nadiif ah iyo agab kale oo dadkaasi ay saameeyeen colaadaha. dagaalo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda oo garab keenaya kuwa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga Al-Shabaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay xawli uga soconaya qaybo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya, si gaar ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo daris ah. dagaaladaasi ayaa dowladdu waxa ay sheegtay inay guulo waaweyn ka gaartay, isla markaana ay doonayso inay dalka gabi ahaanba ka saarto Al-Shabaab meel kasta markaas ay kaga sugan yihiin. waxayna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqday dowladda inay markasta isgarab siiyaan ciidamada kala duwan si looga takhaluso Al-Shabaab. Hiiraan ayaa ugu dambeysay dagaalo culus ayaa maalmihii u dambeeyay ka soconayay qaybo kamid ah gaar ahaan deegaanka Aboorey, halkaas oo dagaal culus uu ku dhexmaray ciidanka dowladda kuwa dadka deegaanka iyo Al-Shabaab. guud ahaan daawadayaal intaan kusoo gabagabeynayna wararkii waad kala socoteen warbaahinta Hiiraan Online. nabad iyo warsan.